kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan halkani waa Kulmiye TV waxaad ku soo dhawaataan weerarkeena habeenimo qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo si cara leh uga hadlay falal ku soo batay magaalada Muqdisho xisbiga himilo qaran oo war ka soo saaray qorshaha muddo kororsiga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Puntland oo sheegtay in amiirka al-shabaab uu arrin caafimaad u jooga Hargeysa wararkii ugu dambeeyay dagaal dib uga bilowday magaalada Laascaanood ciidamada danab oo nolosha ku soo qabtay sarkaal ka tirsan kooxda al-shabaab iyo akhbaaraadkii dibadda qodobadan iyo qodobadii soo raaca ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan wararkeena ee u diyaar garooba qodobadaasi oo dhameystiran ismaqal wanaagsan daawadayaal mar kale waa 20ka bisha 2 sanadka 2023 xisbiga himilo qaran ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay muddo kororsi ay sameystaan hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka waxa lagu yiri waxaan marna suurtagal ahayn aqli ahaan iyo sharci ahaanba qolal la doortay inuu isagu isu sameeyo muddo kordhin haddii ay timaado baahi in wax ka bedel lagu sameeyo qodob dastuuri ah oo taabanaya muddo xileedka hay'adaha dawladda wax ka bedelku waxa uu dhaqan galayaa muddo xileedka dambe si looga fogaado danaha isdiidan ama conflict of interest ayaa lagu yiri war uu soo saaray xisbiga himilo qaran ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay heshiiskii siyaasadeed ee dhawaan lagu gaaray magaalada Baydhabo oo garwadeenka ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inuu u gogol xaarayo ama uu yahay mid u gogol xaaraya muddo kororsi ay damacsan yihiin hoggaanka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya ifafaaladiisina hadda ay ka bilaabatay golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gudbiyay mooshin ay ku raadinayaan muddo kororsi xisbigu waxa uu gabi ahaanba ka soo horjeedaa muddo kororsi nooc ay doontaba ha noqotee magacii la doonana ha loo bixiyay ayaa lagu yiri bayaanka xisbiga himilo qaran geesta kale waxay ugu baaqeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah inay dhowraan sharciga kana dheeraadaan muddo kororsi horseedi kara jahwareer iyo qalalaasa siyaasadeed sidii hore loo soo tijaabiyay xisbiga ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu aaminsan yahay in dawlad dhiska Soomaaliyeed uu marayo marxalad adag oo u baahan dhowrista heshiisyada bulsho adkeynta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed ayna lagama maarmaan tahay in laga dheeraado wax walba oo horseedi kara in dalkani uu dib ugu laabto xasilooni darro colaad iyo burbur ku yimaada hay'adaha dawladda xisbiga himilo qaran waxa uu aaminsan yahay in fikradaha kororsiga muddo xileedka ay aasaas u tahay kalsooni darro iyo cabsi ay qabaan qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha in aan dib loo doorin waxaana habboon in hoggaanka dalku heerarkiisa kala duwan ay ku kalsoonaadaan bulshadooda ayna xoogga saaraan inay muddo xileedka la doortay qabtaan wax ka qabad la taaban karo bayaankan ayaa ugu dambeyntiina waxaa loogu baaqay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in mudnaanta ay siiyaan shaqooyinka hortebinta u leh qaranka Soomaaliyeed iyo geedidhiska dawladnimada Soomaaliya sida qabiyotirka dastuurka Soomaaliya xoreynta dalka iyo qodobadii soo raaca waa inaan dalka loo horseedin hubantilaan siyaasadeed iyo in laga mashquulo halganka lagu jiro la dagaalanka argagixisada iyo dinacafinta ayaa lagu soo afmeeray bayaanka maanta ka soo baxay xisbiga himilo qaran ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed wahagaag daawadayaal waxaad daawanaysaan waa wararka habeenimo markana Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo maanta furay shir sanadeedka shanaad ee xeer ilaalinta Soomaaliyeed ayaa si adag uga hadlay dilalka ku soo badanaya magaaladaasi Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha oo si cara leh uga hadlay dilalkaasi gaar ahaan kuwa ay dadka shacabka u geysanayaan askarta ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in aan la aqbali karin xilligan oo dagaal lagula jiro kooxda al-shabaab in shacabkii Soomaaliyeed la laayo in maalin walba arday jaamacad dhiganayo ama maskiin bajaaj ku shaqaysanaya oo waalid iyo walad ay sugayaan si dhib yar xabad loogu dhuftaa waa ceeb dawladda federaalka Soomaaliya u soo hoyatay haddii cadaaladu aynaan qaban cadawga banaanka lagu baacsanayo waxa ay kan ku kala duwan yihiin ma aysan jiraan ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale waxa uu faray hay'adaha cadaaladda inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lala xisaabtamayo kooxaha dilalka geysanaya dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa tilmaamay in cadaaladdu ay tahay unug isku xidhan oo ay lagama maarmaan tahay in hal mar la isla saxo
isla markaana aan waxba laga qaban karin amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada haddii aan la hagaajin cadaaladda Soomaaliya waxa kale oo ku baaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo dhaqamada ku salaysan laaluushka iyo musuqmaasuq cid walba oo lagu helaana sharciga la horkeeno shir sanadeedka xeer ilaaliyaasha Soomaaliyeed ee maanta ka qabsamay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xeer ilaaliyaasha dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo sidoo kale safiirro iyo marti sharaf kale wahagaag daawadayaal halkani waa Kulmiye TV markana gobolkaasi Mudug wararka laga helayo gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab iyo kuwa dadka deegaanka ay maanta howlgal culus oo ka dhana kooxda al-shabaab ay ka sameeyeen koonfurta gobolkaasi howlgalkan ayaa waxa lagu soo warramayaa in lagu beegsaday xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa inta u dhaxaysa deegaanada Xinlebi iyo Baraag Ciise oo ka wada tirsan gobolkaasi Mudug saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in nolosha ay ku soo qabteen ilaa 5 xubnood oo ka tirsan kooxda al-shabaab una qaabilsanaa dhanka maaliyadda iyo tababarada xubnaha la soo qabtay ayaa la socday gaari nooca raaxada ah oo marayay halkaasi sida ay shaacisay dowladda federaalka Soomaaliya gaari leeyda calaawi ah iyo 5 xubnood iyo raashin konton kiish ah ayaanu gacanta ku soo dhignay ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya laba shaacin magacyada saraakiisha lagu soo qabtay howlgalkan sidoo kalena lama baahin sawiradooda balse dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maxkamadda la soo taagayo dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan xubnahan laga soo qabtay koonfurta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya xaaladda ayaa ah wali mid kacsan waxaana gobolkan si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo aad isaga soo horjeeda oo ay wadaan labada dhinac si kastaba ha noqotee howlgallada ka socda gobolkaasi Mudug ayaa waxa lagaga tamar roonaaday kooxda al-shabaab ayada oo looga dilay xubno ka tirsan kooxdaasi sidoo kalena waxa laga qabsaday magaalooyin muhiim ah oo aad u waaweyn geesta kale dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo shacabka deegaanka ayaa maanta mar kale dib uga qarxay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kaasi oo galay maalintii 15aad oo xiriir ah dagaalkan ayaa waxa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay weerar ay ciidanka militariga Somaliland ku qaadeen saldhigga ay ciidanka deegaanku ku leeyihiin banaanka degmada wararka ayaa waxay sheegayaan in labada dhinac ay haatan isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan sidoo kale waxa dagaalka barbar socda duqeyn xoogan ayada oo ciidamada Somaliland lagu eedeeyay inay wali madaafiic ku ridayaan Laascaanood taasi oo uga sii daraysa xaaladda halkaasi ka taagan geesta kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay labada dhinac oo ku aadan dagaalka maanta dib uga bilowday halkaasi ma cadda khasaaraha uu geystay dagaalka haatan socda waxaase la soo wariyay in madaafiicda qaar ay ku soo hoobteen xaafada ay degan yihiin dad shacab ah kuwaasi oo ku yaala magaalada Laascaanood dagaalka Laascaanood ayaa galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah wuxuuna sababay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh oo soo gaaray guud ahaanba magaalada waxaa sidoo kale ka barakacay magaaladaasi Laascaanood inta badan qoysaskii deganaa halkaasi kuwaasi oo kor u dhaafaya in ka badan 180,000 sida ay shaaca ka qaaday qaramada midoobay si kastaba ha noqotee lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto xaaladda Laascaanood maadaama arrintu ay faraha ka baxday dhigno oo ku daatay magaaladaasi Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wahagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan oo aad daawanaysaan waa wararkeena habeenimo Puntland waxa ay sheegtay in maamulka Somaliland ay haatan Hargeysa ku dabiibayaan mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta Puntland ID Dir oo ka qayb galay dood lagu qabtay Twitter Space ayaa eedayn culus u jeediyay Somaliland waxa uu sheegay inay si buuxda u taageerayaan kooxda al-shabaab isla markaasina ay gacan siinayaan maamulkaasi Somaliland Maxamuud ID ayaa sheegay in hogaamiyaha guud ee kooxda al-shabaab uu haatan xanuunsanayo isla markaasina lagu daweynayo magaalada Hargeysa sidoo kale caruurtii al-shabaab iyo qoysaskooduna ay degan yihiin magaaladaasi waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in surdoonka Somaliland ay koonfurta Soomaaliya u soo gudbiyeen aadan sunna oo carabka ku dhuftay in la rabo in lagu bedelo hogaamiyaha xanuunsan ee al-shabaab Axmed Diriye Cumar Abu Ubayda oo isna horay u bedelay Axmed Godone hadda oo u dambeysay aadan sunna Hargeysa ayay ka soo kaxeeyeen surdoonka Somaliland ilaa ay geeyeen Jilib waxayna u wadaan in uu bedelo hogaamiyaha al-shabaab ninka hadda xanuunsanaya ee Hargeysa jiifa ayuu yiri wasiirka warfaafinta maamulka Puntland dhanka kale waxa uu hoosta ka xariiqay in al-shabaab ay 82 akoon oo ku leeyihiin maamulkaasi Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa isla markaasina ay ugu soo dhacayaan lacagaha ugu badan si kastaba ha noqotee ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland balse eedayntaasi ayaa ku soo aadaysa iyada oo horay xukuumadda Hargeysa ay u sheegtay in maamulka Puntland iyo kooxo ka tirsan al-shabaab ay ka wada dagaalamayaan magaaladaasi Laascaanood ee xarunta gobolka Sool
waa tahay daawadayaal markana akhbaaraadka dibadda xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter oo ah 98 sano jir ayaa laga walaacsan yahay kadib markii laga saaray cusbitaal uu ku jiray muddooyinkii u dambeeyay isla markaasina lagu celiyay gurigiisa halkaas oo uu ka helayo daryeel caafimaad waqtigiisa harsan sida ay sabtidii sheegtay xarunta samafalka ee uu horaanba aas-aasay ee magaceeda la yiraahdo The Carter Center. Carter oo ahaa madaxweynaha Mareykanka intii u dhaxaysay 1977 ilaa 1981 ayaa ahaa madaxweynaha ugu da'da weyn madaxweynayaasha xilliga nool ee soo maray dalkaasi Mareykanka. Waxa uu markuu guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize, waxa uu degan yahay magaalada Plains ee gobolka Georgia isagoo iyo xaaskiisa Rosa. Tuladaasi oo ah meesha uu ku dhashay oo uu ka ahaa beeraley looska tacbada ka hor inta aanu noqon gudoomiyaha gobolka Georgia isagoo oo markii dambe halkaasi ka bilaabay ololihiisa musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga. Kadib dhowr jeer oo si kooban cusbitaalka loo dhigay madaxweynihii hore ee Mareykanka Jimmy Carter, maanta waxa uu go'aansaday inuu waqtigiisa u haray gurigiisa kula qaato qoyskiisa si uu u helo daryeel caafimaad halkii uu ka heli lahaa tabiib caafimaad oo dheeri ah ayay xarunta Carter ku tiri hadal ay soo dhigtay barteeda Twitterka. sanadihii la soo dhaafay Carter waxa uu helayay dawooyin cusbitaal oo kala duwan oo ay ku jiraan markii uu shaaca ka qaaday bishii Agost 2015 in uu qabo kansarka ku dhaca maskaxda oo uu sheegay in laga daaweynayo inta uu madaxweynaha ahaa. Carter waxa uu sameeyay ballanqaad ku aadan xuquuqda aadanaha iyo cadaaladda bulshada labadii sano ee ugu horeysay xukuumaddiisuna waxa ay ahayd mid loo riyaaqay, waxaana waxqabadkiisii ka mid ahaa dhexdhexaadintii loo sameynayay Masar iyo Israa'iil. Heshiiskaasi oo loogu magac daray heshiiskii Camp David. وهذا داوديال أنت سيان كوسو جبجبينيا وركي كلمية تيفي أنت إنه أخبارات نوعا وكلا أدبوا كل مدورنا وحن صاحب يالي دينك كتجينا نبت قليو واحد وركي إن لو ذاك كرتان صاحب بدل إذنكو استوشها قرينا يا أبراه بالشدة.